waxay naf ka raadiyeen in ay howlgeliyaan ama ku shaqaystaan ama qoriyo u dhiibaan oo ay u dagaalamaan rag ciyaalka aad u jeedid maxkamadda maanta hor keenay ciyaalkan waxaa laga soo qabtay ayadoo loo wado furmaha dagaalka waxaa dagaalgelin rabay argixisada al-shabaab xitaa ma qaan gaarin 13 jiro 14 jiro waay nimanka isku sheegay horjoogayaasha ahaa waxay naf bideen inay ku shaqaystaan ciyaalkan qafaala lagu soo waday naftooda waxaa badbaadiyay dawladda badbaadisay maxkamadda waxaan ka codsanayaa nimankan xataa qaangaar ma aha wax awood leeyahay malaha waa la iska soo wada qafaashay marka maxkamadda kuwan waxaan ka codsanayaa teamkan yar ee aan qaangaarka ahayn ee xoog lagu soo wato ee dagaalka lagu shubi rabay sida haddaba dawladda ugu badbaadisay naftooda ugu soo badbaadisay in dawladdan ay rehabilitation u sameeyso dhaqan celin u sameeyso maxkamadeenta 32 qofood oo loo heesto argagixisanimo ayaa halkan ka jirto November 6 sanadkan ayay ciidamada nabad sugidda ee ku jira geedaha webiga hoostiisa iyo dhulka dooga leh ee iska saaran Basra iyo Balcad ayaa xilli habeen ah gacanta ku dhiga gaari ay saaran yihiin 28 qofood daroowal kalkaal kirishboy iyo 25 maleeshiyaad loo daabulayo furmaha Hirshabeelle iyo galmudug kaga furan argagixisada ayay ka koobnaayeen 32 kaas Ismaaciil Maxamed Fiido waa mid ka mid ah adeegayaasha argagixisada uga wakiilka ah reerkiisa gaar ahaan Balcad iyo tuulooyinka ay ka kooban tahay laba ka mid ah reer Fiido oo kala ah Jimcaale Maxamed Fiido iyo Maxamuud Maxamed Fiido ayuu u dooray inuu safka khawaarijta ku biiriyo kaliya labada ma aha ee xitaa walaashiis ninka qabo leenka argagixisada ayuu ku daray Jimcaale waa daroowalka gaarigan waana safriyaha webiga iyo xeebta argagixisada uga wakiilka ah waxa uu isku si u daabulayay agabka qaraxyada argagixisada iyo shakhsiyaadka kula jooga qafaalka iyo kuwa ay marin habaabiyeen khawaarijta labada nin waxay dhaheen ragana qaade waxa geeyay meesha la yiraahdo cilmaan agtiisa wadaartana u soo laabay amar waay marka rag sidii ku qaaday anigoo si socod gaariga ay ku laaday oo iga damay anoo gaariga biyo ku shubaya ciidamada dawladda ay soo qabteen walaalkiis Maxamuud Maxamed Fiido waa caawiye daroowal waana lacag doon u arko fursad shaqo hawshan aniga عليك سحر ماشي بارك لك ساقط بارك سنة dadka basraak soo qaaday Ismaaciil Axmed Xuseen Xasan waa kirishboy aan waxba ka fahansaneen hawshan sabab qudaar la soo qaaday leedahay ma fahad ya qudaartana macnaha da xaq la tagay qudaarti saanay naqatay bas Maxamed Daawud Cabdi milkiilaha gaariga lagu qabtay maleeshiyadan gaari kale oo loo iibiyay argagixisada maragiisa iyo geerislakeed u ah ayuu ahaa khawaarijta xiritaanka kooxdan kadib ayay nabad sugidda soo qabatay wuxuu qabnay baawar raba baawar ma rabta ha baawar waa haya ma haysa ha kana ku anfaco okay kii adiga itiray waa anfaca adiga itiray aniga waa anfaca bas khalaas waa gadayna saas ku habaysan aniga isku wala shaqaysan Jimcaale ku ogaay aniga markii waxa ku ogaay Maxamuud u dhiibay baawar aniga Maxamuud Fiido u dhiibay laakiin shilkaas la galay Jimcaale iyo Maxamuud wax dhanba Nuur Maxamed Shiiqay waa farsamayaqaan birta ku xeel dheer waxa uu wax kale uga dhigay argagixisada gaari ee $4,000 ku iibiyeen anuu jilaani leeyahay bawarka rajiya bawarkana nin shacab la waagiisa horo oo leeyahay oo lagu magacaabo xasan baxreen ninkaas aan heshiin waxaan ku heshiinay lacag $200 ah shaqadii $100 buu isii shaqadii markaan wari kala bar imanayso ninkaan ku wareegay Jimcaale bawarka iibsaday Iidow Shakuur Cali waxa uu la leeyahay xiriir argagixisada gaar ahaan maskaxda wasaqaysan ee kooxdan dhan geed fariisiga u ah Ismaaciil waana milkiilaha geeriska labaad ee gaariga argagixisada la dhigay ninkaan Nuur ee baabuurka ii keensada asoo rinji raba Baatlemeer ka soo bax Baatlemeer adoo ka soo baxay rinjiyo ku samaystay asoo rinjiyahayo Jimcaale agta ka fadha arkay Jimcaale waa naga tagay baabuurkii Ismaaciil Fiido ayaa ihaanday telefoon uu soo diray baabuurkaas haddaba ii soo dhiibo u yeeray nimaana kula taagan ninkii galabtii ma imaanin subaxda ala saydiyo
gaarigana sidii uu igaga qaado gaarigana ninkaana u ahay ninka iga qaado ninkaana u ahay maxamuud colow ibraahim waxa uu qabaa gabar reer fiidow ah waana gacanta argagixisada ku sintay gaariga ilbiriqsiyada ay ku ilduufeen hay-adaha amniga ismaaciil fiidow seedigay waayo ilmahayga abtigood waayo aniga niyow gaarigaasaa uu isoo wacay niyow gaarigaasaa wuxuu yidhi garaashkaas yaallo maadaama oo ninkii la qabtay gaariga dayactiraanu ku socday wiilkaana dayactir ku dhameeyey marka ii keena uu dhahay gaariga x control ii keen sidii ugu geeyay aniga meeshaas mar kale alaabtiisa markii la dhammaystiray alaabtiisa oo wadina waxa u dhahay ii soo qaad alaabta gaariga kuraasta iyo waxaas miraayadaha meesha u geeyay x control ajabka u geeyay ragga halkan joogo waa caruur in badan oo ka mid ah waxaa laga soo qafaalay beerahooda xoolo raac iyaga oo ah kuwa kala jawaana ayaa madaxa loo soo geliyey waxa ay safar soo ahaayeen muddo maalintii mar qura lagu quudin jiray digir fixiso ama leebaja lagu daray kuwa kale oo ka mid ah ee madaxyada roon laftooda uma fadhido anoo haafadirow maqrabatiye lankuingweri madaan ansmbayn lankugekinweri abaleeri lanki madaan ambayn mootilisa way usay mootilisari kadibna si mootadan ful meeli alkun roon liishani madiina banina aqaftona nasari gadaalshaatan doontoona nasari baaqona nasari reed anoo shaqaysanayo oo beer moos waraabinaya lagu qof al-shabaab ay soo afdood gaar caasa ay soo saaray marka tuul an ka siinna lii keenay kadib gaar cagafan oo lagu soo qaaday waxaan walkan basra hoosteeda oo keenay basra dan doonana lagu soo saaray abaaran aan soo lugeysay wadada dhiiqa ahayd hadan gaarigan lagu soo wareejiyay degmada ugunja li soo qabtay shufeer meel oo dhow tuul ee beeraay ali soo qabtay baawur ali soo wareedi basra li keenay lamaro beer saddexdo beera meel ku xirneen wabiyan ul soo gudbin kaan ul gadgaday baawurka kisto socon baawur oo meesha ul saari wastaa inta ul xir baan ul soo qabtay beero rogan beero hol ku dhuray beero marka hol ku dhuray mooto li soo saari mootada meel in wadi okan baawur li soo saari baawur soo dan aqaf li soo saari aqafti dan doon soo saari doon markan soo gudbi baaran soo saaray baarku dawladda qowti waxaa la soo qabtay degmada jinaale meel la dhahay ugunji anoo beeraha ka imaaday baawur oo soo roora iga hor amaaday wal istaajiyay waxa tal furdaaqada fure soo galay soo galay soo galo soo galaysa wali sabax qora li qabtay indhaa li xiro li soo daji meel basar la li keen marka meeshi basar la hal bira istaagnay oo soo baxnay doonak saa gudubnay baawuran aan soo dajiyay marka dawladda saasna u qabatay kabaad baarku xoog li soo saarden soo wadadan makiina li soo saarden doona li soo gudbi adan baawur li soo saar adan ciidan dawladda qabsatay meelin Soomaaliya ma ogi hadda inta ma kasoo heer baadiile iskay beer faleeto yeerin mooto bo meelin jani amada dheere oo amada mejar baba ni wala markaada dheer mooto gor siliwadi 20 jaro liji 20 jaro liji tin oo meeto laysar oo meeto silawadi makiinado lay bedel makiinada doonta janti doonta laysar doonta baba lay moodi oo meeto laysar oo meeto baba laysar haten dawladda ay goobtay anoo markaas asarkiino balon dheloon bay balon gila ku bagay xaafada soodo yareekay mooto koyd mootadiya akora leer mukurawer handoo loo yiri wala saaray rasaasal xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamadda ka dalbaday inay kala miirto kooxdan oo hadba xukunka loola ekeysiiyo kaalinta iyo go'a ay jiraan axmed cabdalla ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ayaa caruurta u weydiiyey in nolol iyo fursad loo abuuro beddelka horkii argagixisada dhalinyarada yaryar ee ku nool goobaha baadiyaha ah iyagoo ka soo qafaalanayo si xoog ku soo wadanayo kadibna qoryo inay u dhiibaan ee dagaal ku shubaan awooddaradooda awgeed haddaba waxaa dawladdu ay qabatay 25 kaas wiil ee dhalinyarada ah oo qaarkood ay yaryar yihiin oo qaangaar ahayn qaarna qaangaar yihiin oo la soo tashkiiliyay
waxaa 25 kooda waday eedeysanaha koowaad oo ah Jimcaale Maxamed Fiidow oo maxkamadda horteeda ay kaga cadaatay in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab in uu shabaabka u soo qabtay shaqooyin badan inuu qaraxyo ka qaaday Basro oo uu geeyay furmaha hore dagaalka jirgaano ay ka buuxaan walaha qarxa kuwaas oo loo adeegsaday dagaalka shabaabka ay ku jireen waxaa maxkamadda ka hor cadaatay in horjoogayaal dhaawac ah uu soo qaaday eedeysanahaas waxaa maxkamadda horteeda ka cadaatay in gaari caasi ah uu shabaab u iibiyay eedeysanahaas koowaad waa eedeysanaha ugu halisan tiimka maanta maxkamadda hor fadhiyo ee halka shabakad ah sidaa darteed mudane gudoomiye Jimcaale Maxamed Fiidow magaalada Muqdisho iyo dalkan wuxuu ku yahay dhibaato weyn uu ku yahay hal shaqo uma qabanin dhowr shaqo oo isxigxiga ayuu 2023 gudaheed ku qabtay waxaan maxkamadda ka codsanayaa in eedeysanahaas bacdama uu yahay eedeysanaha koowaad shabakadana uu asaga ugu halisan yahay marka laga soo gudbo walaalkiis oo ah horjooga Ismaaciil Maxamed Fiidow marka laga soo gudbo horjoogaha koowaad waa kana ee shabakadan waxaan maxkamadda ka codsanayaa asaga in ay ku qaado qodobadii aan ku soo eedeynay waliba ay ku xukunto xabsi daa'im ma istaahilin in magaalada lagu sii dhaxdaayo waxaa soo haray eedeysanayaasha labaad iyo saddexaad oo ah Maxamuud Maxamed Fiidow iyo Ismaaciil Axmed oo kirishboy ka ahaa gaariga Jimcaale uu darawal ka ahaa waxaa maxkamadda ka codsanayaa waxay goobjoog ahaayeen eedeysanahan faldambiyada uu geysanayo dhan ayaga la fudeynay jirgaamada ayaga la saaray gaariga ayaga kala dajinay meesha la geenayo baabuurta ayaga hagay marka qaar second waxa uu ahaa darawal Maxamuud Maxamed Fiidow waa qoys dhan oo shabaab ka wada tirsan Jimcaale Maxamed Fiidow Maxamuud Maxamed Fiidow Ismaaciil Maxamed Fiidow maqana horjooga ah waxaan maxkamadda ka codsanayaa in labada eedeysane ee kirishboy ka ahaa gaarigaas shaqadana la qabanay la daabulayay gurmadka al-shabaab dhaawacyada la soo daabulayay in ayagana ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeynay mudane gudoomiye Maxamed Daawud Cabdi waa eedeysanaha iska leh milkiilaha gaariga 25 kan eedeysan lagu waday sidoo kale waa garaashle baabuurta ay ku qarsadaan qawaarijta sidoo kale waa iibiyaha gaariga hadda caasiga ay shabaabka laga gaday loona qariyay waxaa maxkamadda horteeda ka cadaatay inuu asaga gaarigaas garaashkiisa yaalay laga iibsaday $4,000 Jimcaale uu ka iibsaday Ismaaciil inuu xiriir la sameeyay maxkamadda ka hor cadaatay waxaa maxkamadda ka hor cadaatay in xiriir uu la sameeyay argixisada Maxamed Daawud waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa bacdama dambiyadaasi ay si waadax ugu cadaatay Maxamed Daawud number 1 in ay ka xukunto baabuurka hadda argixisada lagu waday in ay ka xukunto hay'adaha amniga lagu wareejiyo baabuurkaas number 2 garashkaas oo asaga iska leeyahayna in ay dawladda ka xirto oo si kale dawladda ay u isticmaasho saldhig ciidan xataa laga dhigo number 3 Maxamed Daawud inay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeynay bacdama ay ku cadaatay xiriirka shabaab uu leeyahay sidoo kale maxkamadda waxaan ka codsanayaa Nuur Maxamed Shiiqay waxaa maxkamadda horteeda ka cadaatay inuu xiriir shabaab la sameeyay in uu baabuurta u dayactiri diray in uu garaashka Maxamed Daawud asaga ka soo qaaday garaashka kale asaga uu geeyay Ismaaciilna uu yiri sidaas samay bacdama uu horjoogiiba xiriir la sameeyay taleefanidiisa aan soo bandhignay asna waxaa maxkamadda ka codsanayaa in ay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeynay Iidow Shukuur Cali oo ah 63 jir shabaab lagu maqalday ninkaas 63 sano jira waa og yahay dhibaatada ay shabaab geysanayaan waa og yahay maalin walba inay qarax dad ku laayaan baabuur ay shabaab leeyihiin in garaashkiisa la keensado raaliyo ka ahaa lacag ka qaadanay horjooga la soo xiriiray baabuurka garaashkiisa lagu dayactiray garaashkiisa haddana laga soo qaatay oo la yiri hay iigu soo dhiibay shaqada mar liido meeno ahaa ninkaas kale iigu soo dhiibay Maxamed Colo iigu soo dhiib wuuna ugu dhiibay wuu la shaqeeyay hay'adaha amniga ayuu ka qariyay mar alla markii Jimcaale la qabtay waa markii uu wareejinayo Jimcaale la qabtay Jimcaale hadii uu dawladda qabteen waxa laga yaabaa in garaashkii uu gaariga uu ka ogaa uu geeyay wuuna geeyay inta uu san geeyin ka hor Iidow uu ka bedelay meeshii oo macnaha Ismaaciil ay wada xiriireen horjooga ah gaariga sidii looga qaaday waxaana qaaday Maxamed Colo wada shaqeynaa ka dhaxays Iidow waa cadaatay maxkamaddeena ka hor cadaatay xiriirka taleefanidiisana waa la hayaa waxaan maxkamadda ka codsanayaa in ay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeynay oo bun looga dhimin eedeysanaha toddobaad oo ah Maxamed Colo Ibraahim waa eedeysanaha 2 jeer
isla kiiskan shaqo ka dhex qabtay waa eedeysana halis ah waxaa maxkamadda horteeda uu ka sheegay in arrintaani uu u sameeyey dembigan inuu asaga galay isla markaana uu u sameeyey seedinimo wuxuu sheegay in horjoogahaas maqanaha ah ee dhuumashadu ku jiro oo seedigiis yahay sidaas darteed uu shaqada u qabtay soo asagiyaaba qiraal ahba wuxuu dowladda ka qariyey ka marin habaabiyey khatar geliyey amniga baabuurkii shabaabka ee lahaayeen qariyey ka qaaday garaashka iidow isla markaana duurka ugu geeyey al-shabaab aa maxkamadda horteeda ka caddaatay haddana sidoo kale qalab gaariga taargadii waxbaa laga tagay asagaa ka qaaday duurka ugu geeyey argixisada soo uu ka tirsan wala shaqeeyey waaba caddahayba taas saa darteed maxkamadda sharafta le waxaan ka codsanayaa in ay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeennay ciqaabta ugu adag ee dhigaysa weliba mudane guddoomiye mudane garsooreyaal maxkamadda sharafta le waxaa soo haray 25 eedeysane ee loo waday shabaabka ee furmaha hore dagaalka la geenayay ee laga soo kala aruuriyey baay iyo bakool iyo deegaanada qoryooley jannaale shalaambood oo dhiigle buulo mareer laga soo kala aruuriyey oo argixisada ay laba hal ay u soo wadooteen ilmo yaryar ku jiro oo dagaalka ay gelinayay furmaha hore dagaalka qaara ku qancay fikirka al-shabaabka oo saas darteed jabhadii ahaayeen oo waxay u socdeenba inay dagaalka qayb galaan soo tiimka ku qancay shabaabnimada ee dagaalkaas inay ka qayb galaan u socday waxaan maxkamadda ku codsanayaa in ay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeennay balse maxkamadda sharafta le waxaan si xushmad leh uga codsanayaa tiimka aan qaangaarka ahayn ee la soo qalday shabaabka ay ka faa'iideysan rabeen maadaama aysan caqli ku filan lahayn in dowladda hadda sida ay uga badbaadisay dagaalkaas inay galaan naftooda ay ku halaagsamaan sida ay hadda uga badbaadisay inay mar labaad haddana asxaan u samayso dowladda ee maxkamadda sharafta le waxaan ka codsanayaa rehabilitation in loo sameeyo dhaqan celin loo sameeyo xiryaha oo hadda iyo kow in wax la baro xitaa qur-aanka xataa maysan barin in wax la baro ah maxkamadda ka codsanayaa maxkamadda sharafta le waa mahadsantahay qareennada u doodaya eedeysanayaasha ayaa iyana isdul taagay dhowr dhinac sida qafaalka carruurta xiriirada qoyska oo aan la argagixisin iyo codsiyo kale jimcaale maxamed fiidow waxaa lagu eedeeyey in uu shabaab yahay waxaa lagu eedeeyey shaqoodhin kala gidisan in uu shabaab u qabtay oo ay ka mid tahay inuu jeerigaanno waxyaalaha qarxa ay ku jiraan inuu u qaadiyey lama keenin asagu ma uusan qiran markii la joogay eedda loo jeedshay 103 104 wuxuu ku jawaabiyey in uusan gelin maxkamaddana lama hor keenin dad markaatiyaal ah oo caddaynaya jimcaale inuu jeerigaanno waxyaalaha qarxa ku jiraan qaadiyey markaatiyaal caddaynayana maxkamadda lama hor keenin asaguna qiraal ma ahan baaruhu juhdi badan ayuu sameeyey haddana ma uusan keenin haddii sheegasho laga soo tago ama asagaa ii qirto uu leeyahay ma uusan keenin markaati sida uu qabiyo qodobka 108 xeerka habka ciqaabta qofku shay horay oo u qirtay ayuu ka laaba kariyaa waxa la ictibaaraa qaanuuniyan haddii hadda amaama maxkama loo jeedsho eedda wixii uu ku jawaabiyo ayaa la ictibaaraa balse horay ayuu iigu sheegiyey wax ictibaara oy leedahay ma jirto xeer ilaalintuna ma keenin qiraal ay sheegeen markaati ka dheeraada ma aysan keenin jimcaale waxaa lagu qabtay xaqiiqatan 25 qofood asigoo wada jimcaale waxaan su'aalay 25 qofood meesha uu ka keenay iyo heerkii soo saaray wuxuu caddeeyey shabaab inuu soo saariyey xoogna uu ku soo saariyey saa'igul kalaam jimcaale haddii la qabanayey hay-adaha amniga ayaa qabtay wuxuuna qiraal yahay dadkaas in uu wadiyey jimcaale qiraal waaye balse inta kaleentood oo ka horreeyey oo isugu jira jeerigaanada iyo dhaawaca isugu jira jimcaale ma uusan gelin
caddayne xeer ilaalintu ma keenin. sidoo kale maxamed daa'uud cabdi waa milkiilihii gaariga darawalkuna dadkaas aan soo saarayaa muusan odhan oo xog lama wadaagin darawalkuna waa sheegay qudaaray la doonay waxa kalena wax qasab ay ahaayeen waxa nimanka meesha saaran inay hubaysan yihiin buu ictiqaadinayay muwakkilku darawalku saasuu wax ula wadaagi karin oo shabaab baan wada u oran karin marka gaarigiisa shabaabna hor looguma qaadin qaraxna looguma qaadin wax lagu soo qaaday waxa ugu horeeyay nimankan dhalinyarada ah maadaama xiriir shabaab uu la leeyahay aysan jirinin xubin ka midana uusan ahayn qiraalna maxkamadda horteeda uusan kaga ahayn maadaama milkiilihii gaariga uu yahay waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa dalabka xafiiska xiraalinta uu dalbaday in gaariga laga dhigo lagu xukumo dowladda iyo in asaga xabsi lagu xukumo labaduba maxkamadda inay diido maadaama reer bana u yahay gaarigiisii oo la kaxeeyey oo si qaldan wax uga dhaceen inay asagii qalad laga galo haddana qalad xukuna la sii saaro ma qabato waa nin muwaadin ah dembi falana ma aha dembina kuma cadda eedda xafiiska xiraalintu inay diido gaarigiisina loo soo celiyo isagana haddii alla ku idin xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo sidoo kale nuur maxamed shiiqey nuur rinjiile waa xirfad leh gaaraa loo keenay wuu xirfadeeyey wuu rinjiyeeyey asaga rinji buu ku egyahay shaqadiisu waaba rinjiile cid kastoo gaari u keentana wuu u rinjiyeynaya shabaabna gaariga kuma dheganayn waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa asagna xorriyaddiisa si dhammaystiran in loogu celiyo sidoo kale iidow shakuur cali oo ah garaashka joogay asagu waa garaashle waxna ma farsameeyo baatalmeerista ma ahan rinjiilana ma ahan makaanika ma ahan gaadiidka hoygaas meesha lagu hooyo unbuu intiisa ka qaataa maadaama cilmigiisu iyo ogaalkiisuba intaa uu yahay waxaa maxkamadda sharafta ka codsanayaa kelmadda uu yidhi in loo taxgeliyo kelmadda maxkamadda horteeda uu ka yidhi duruufaha jira oo maxkamaddu og tahay ayadood xeerinaysa inay maxkamaddu xorriyaddiisa dib u soo celiso maadaama shayb yahay sokor qaba dhib qaba wiilkiisana ciidanka hadda ka hor hortiisa ay ku dileen oo aan weli magdhowna aan laga siinin taas oo aan weli loo soo qaban xataa eedaysanihi dhib taasuu qabaa asagoo dhanba waa cabsanayaa wal soo waxa uu sheegay haddaadna wareejin asal laftiisa in loo dilu ka baqay cabsiduna way bannaan tahay nimankaanna waa hadda waad xoogaal baa u tihiin inay guryaha iyo magaalada qarxinayaan sharwadayaal ay yihiin waxaan codsanayaa xorriyaddiisa in loo celiyo sidoo kaleetood maxamuud colow ibraahim bini aadamku waa qaraabo hadduu shabaab yahay iyo hadduu gaal yahay qaraaba ka dhexaysa gaarigana wuxuu ku kaxeeyey qaraabanimo wixii lagu gadanaya qaraabanimo ahayd gaariga ii kaxeey baa kii horta gadana ma ahayn asagoo xididnimo ahayd gaariga walaalkiisaa gaday ninkaas haba loo gado shabaab ha ahaado asaga dowrka kaga aadan intaasay ahayd bini aadamkuna si qaraabo way isugu xiran yihiin waxaa maxkamadda sharafta ka codsanayaa saa qiraal ah qof shabaaba inuu la shaqeeyey inta uu xiraaba ciqaab ugu filan maxkamadda waxaan ka codsanaya xorriyaddiisa in dib loogu celiyo maadaama dhib usan geeyin wax uu dhib u geeyin aysan jirinin xiriirada teleefoonnadane waa markii caadiyan aan ku xisaabtanno maskaxda ilaahay ina siiyey iyo sida la wada yahay ma la odhan karo maadaama qof uusan dhib usan ku geysan maxaad qof shabaab ula hadashay ama aad xiriirkii teleefoonkiisa u haystaa qof laguma dhibaateyn karo waayo dhibaato waddanka ka jirta wey ayaga laftiga dhibaato waddanka ka jirta inta kaleetood oo 25-ka xeeraalyaha ka hadlay baaraha iyo xeeraalaynta kulli waxay isku waafaqsan yihiin in qasab lagu soo kaxeeyey mukhtaarba ma aha maadaama mukhtaar ay sahayn maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa say inta yararkaana horta ayaga maba la sii dayn karo ilaa ehelkoodii la helo oo waa laabud waa in ehel loo helaa kulle xiriirana ehelkoodii waa la samaynay inta kaleetooda qaangaarkaana xorriyaddeeda in la celiyo xabsiga laga sii daayo maxkamadduna waa mahadsantahay waxaan ku bilaabayaa dhalinyarta 25-ta ah waxaan in la sii daayo sida ugu dhaqsiyaha badan maadaama qodobka 70
faqrada labaad xarafkiisa double e uu qabo qofka hadduusan mas-uul dembi uusan noqon karin in lagu dabaqo xeerka maxkamadeynta caruurta oo ah qodobka 6 faqrada 1 xarafka e ee xeerka maxkamadeynta caruurta oo bila shuruud laan xataa lagu sii daayo marka taas intaas u gudbaya toddobada kale ee sanayaasha oo muwakkiliinteeda ah mudul gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa waxaan u sheegayaa qofka hadduu maqsuub yahay ama diikan la khasbo waxa lagu khasbay muxuu ku yeelan karaa shareecada islaamka markii laga soo baa ayadaha quraanka axaadiista fiqiga dhammaan waxay isku waafaqsan yihiin qofka la khasbo ficilka lagu khasbo inuusan waxba dambi ku yeelanayn sidoo kale qodobka 27 ee xeerka habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu sheegayaa qofka haddii lagu khasbo fal asaga uusan ka imaanin rabitaankiisa inaan loo ciqaabin saa darteed maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa muwakkiliinta anada dhammaantood waa beri saas awgeed in la sii daayo xorriyadoodana dib loogu celiyo maxkamadda waa mahadsantahay gaashaanle sare xasan cali nuur shooje gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhigan wakhtiga badan ay geliyeen garsoorka ciidamada qalabka sida dhegeysiga garmaqalka dhanka ka ahaa 32 eedeysane ee maxkamadda hortaagan intaas ayay ku dhan tahay maxkamadda ayana go'aan ka soo saarayso fadhigu waa noo xiran faankii iyo faataadhugtii ay ku hayeen argagixisada furumaha hore ee dagaalka uu kaga furan yahay gaar ahaan galmudug iyo hirshabeelle waxa ay dhashay in caruurtan ay ka soo qaataan kana soo qafaashaan reerahooda qaarkood waxaa loo diray inay raacaan xoolaha noocyadooda kala duwan halka kuwa kalena ay ka shaqaynayeen beerahooda waxaa laga keenay meelo kala duwan oo ka tirsan shabeellada hoose baay bakool iyo jubbooyinka laakiin ilaahay waxa uu gacanta u geliyey caruurtan habqanka ah ciidamada nabad sugidda iyaga oo loo wado in xaabada galmudug iyo hirshabeelle lagu shido maxkamadda ciidamada horteeda ayaa looga garnaqayaa dhallinyaradan waxayna dhinacyada ay u dalbeen in dhaqan celin loo sameeyo waxna la baro cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho